diyaar garooba idaacadda qaybaheeda kale waa tahay waxaan noo soo socota warbixin iyo taxliil ku saabsan sababta Soomaaliya ciidan qaran ay u dhisan laadahay hasaatee marka hore madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed oo iscasilay Isniintii oo iminka la sheegay in uu caasimadda dalka joogo iyo waxa uu ku sugan yahay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida ayaa maanta wararkooda ugu dambeeyay waxa la socday Mawlid Xaaji Cabdi oo hadda stuudiyaha ila fadhiya Mawlid waa mahadsantahay marka hore bal nooga waran xaaladda xarunta dawladda deegaanka magaalada Jigjiga waa sidee Cabdi waa mahadsantahay wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in labo arrin oo kala duwan magaalada ay ka jirto dhinac waa dadka oo wax hubanti la'aan ku sugan iyo wax dhici doona isla markaasna ay dhago u taagan yihiin dadka taasi waxay keentay in magaalada ay ka baxaan dadka aan Soomaalida ahayn ama qowmiyadda Soomaalida ahayn sida Amxaarada oo kale ama dadka ka soo jeeda qowmiyadaha kale waxa la sheegay inay aadeen magaalooyinka Harar iyo waliba Addis Ababa oo kale waxay taasi ku la xiriirtaa baa leeyahay sugnaansho la'aanta wax dhici doona oo kale marka waxay dadka qaarkood isla dhex marayaan in ay ka qabaan walwal Soomaalida laftigeeda oo bilowday in qoysaska caruurta iyo haweenka laga saaray magaalada gaar ahaan raggiina magaalada ku soo hareen marka taasi marka la fiirsho waa dhinaca dareenka xiisadda wali jira dhinaca kale markaad fiiriso maanta waxay ka duwan tahay maalmihii hore ganacsiga baa dib u furmay meelaha qaarkood magaaladii waa jidadka la nadiifiyay xitaa qowmiyadaha Soomaalida iyo dad kale oo ku jira qaarkood ayaa waxa la sheegayaa inay ka qayb qaateen arrintaasi oo ay magaalada jidadkeena nadiifinayeen si markaasi socodka u bilowdo dadku si teelteel ay isku dhex marayaan gaar ahaan dadka kala duwan qowmiyadaha waxa kale oo idina jirta in xisbiga talada maamulka haya ay hadda shir ku leeyihiin xarunta madaxtooyada waxaana jirta sidoo kale in shirkaasi waxa looga hadlayo ilaa hadda aan BBC-da loo sheegin inta marka laga soo gudbo waxa jirtay ciidanka liyu booliska oo ku sugnaa deegaanka leeyahay Coballe oo dhagax buur u dhow inay hadda ka bixeen halkaasi oo la sheegay in dhinaca deegaanka Shiilaabo lama oga ujeedka waxa uu yahay iyo xaaladaasi waxa ay ka dhigan tahay internetka magaalada ka go'an yahay iyo guud ahaan gobolka oo dhan waa maalintii saddexaad arrintaasna waxa la sheegay inay tahay arrinta la xiriirta dawladda xaggeeda inay ka timid laakiin telefoonadu way jireen maanta waxa la sheegay in magaalada laba diyaaradood oo miig ah dusha u soo magaalada dusha xawaareeyeen xagga sare wax yar kadibna ay baxeen lama oga waxay tahay ka macnantaa arrintaasi marka xaaladdu hadda sidaas ay ku sugan tahay waa war fiican aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamed waa uu iscasiray warar waxa soo baxay shalayto matalan lahaa waa la qabtay iyo lama qaban maanta oo Arbaca maxaanu ka ognahay xaaladiisa ilaa hadda mas'uuliyiinta xilka loo dhiibay gaar ahaan madaxweynaha BBC-da waa isku dayeen in la xiriirto waa inoo suurtagelay weeyaan la hadalno gaar ahaan mas'uuliyiinta deegaanka sidoo kale waxaynu isku dayeen la hadalno dawladda federaalka qudheeda iyo dad Addis Ababa ku sugan dhammaantoodba way inoo suurtagelay inaanu helno laakiin wararka BBC-da ay helayso xogogaalka waxay tilmaamayaan in Cabdi Maxamuud Cumar uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa waxa markaa jira warar iskhilaafsan oo ah inuu xiran yahay iyo warar oranaya xabsi guri ayuu ku jira iyo warar sidoo kale oranaya amni ahaan ayaa halkaas ninkaas ugu sugan yahay marka ilaa hadda ma cadda waxa kale oo BBC soo gaartay war tilmaamaya in mas'uuliyiin oo kamid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa oo la sheegay sida hadalka loo dhigay in dawladda ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ay kala tashanayso xaaladda gobolka lama oga in arrintaas ku aadan tahay arrinta ayaha mustaqbalka xaaladda gobolka laakiin xaaladda gobolka Nabaali waxa kale oo sidoo kale warar BBC-da goor dhaweeyay heshay ay tilmaamayaan in diblomaasiyiin ajnabi ah oo aan ahayn Soomaali ama Ethiopian ay sidoo kale xaaladda gobolka kala xiriireen mas'uuliyiinta waddanka Ethiopia gaar ahaan dawladda federaalka oo ay ka walwalsan yihiin xaaladdu waxay ku dambayn karto iyo qalalaasa dhici kara oo gobolka Jantar Rogan ka dhigi kara marka waxa moodaa in xaaladdu hadda ay u muuqato mid wax walba la filan karo oo ay si deganaansho loo fiirinayo ayaad moodaa